Sheikh Jaamac Xuseen Jaamac wadaad oo gacanta ku haya xarunta daaweynta Quraanka iyo sunnaha rasuulkiina subhana calayhi salaatu wasalaam ee Daburaxmaan ee magaalada Burco oo Ariel TV u waramay ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay isku daaweynta Quraanka iyo sunnaha rasuulka isagoo ka waramay qaybaha iyo sida ay u shaqeyso xarunta Daburaxmaan ee lagu dabiibo dadka oo haleelay xanuunka ku dhaca dhimirka iyo miyirka qofka. Sheikh oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waayo aragnimo waxa weeye dheer oo waxa weeye Ilaahay ka dhigayo leh ummad badanna waxa weeye insha Allah Ilaahay ku daweeyay ku caafiyay waxa weeye wax qabad fara badanna ummadda leh gobollo kale oo waxa weeye Soomaaliland dhexdeeda ana insha Allah ka shaqeysay qaybo horu cilaajku waxa weeye wuxuu ka kooban yahay qaybta waxa weeye bukaan socodka waa leeyahay oo dadku waxa weeye ay dawada ku qaataan oo yimaadaan oo qofka waxa weeye Quraanka iyo waxa weeye sunnada lagu daweeyo isagoo waxa weeye Ilaahay ka dhigayo gurigiisii u hooyaan tagay gelin hor iyo gelin dambe u yimaado wuxuu kale leeyahay cilaajku waxa weeye qaybta bukaan jiifka abu leeyahay dadka waxa weeye dhimirka ah qayb bay leeyihiin waxa weeye lagu hayo oo lagu xanaaneeyo oo lagu dhaqaaleeyo ay leeyihiin oo lagu daweeyo runtii dad badan dadka dhimirka ah waxa weeye xanuunada aad u leeyteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa ku caafiyo iyaga caafimaad qaba ayay iminka dadkooda iyo danahooda ay maamushaan wuxuu kale leeyahay cilaajka Daburaxmaan qayb waxa weeye insha Allah aanu iminka soo kordhinay oo ah waxa weeyaan dadka soo socon kari waayay in guryahooda lagu booqdo oo loogu tago looguna insha Allah loogu soo shaqeeyo oo waxa weeye lagu soo qanciyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalaamkiisa iyo sunnada nabiga waxa weeye lagu soo daweeyo oo iyagoo chiefkooda jooga insha Allah waxa weeye loogu tagi doono gobolka Togdheer gudihiisa insha Allah barnaamijkaana waanu soo kordhinay ummaduna insha Allah waa ka faa'iideysan doontaa oo ku soo dhaweynaynaa waxaan insha Allah iyadana walaalayaal dhawaan soo kordhinay oo aanu rabnaa insha Allah inaanu hirgelino qaybta waxa weeyaan afraad oo ah waxa weeyaan qayb waxa weeyaan lagu baranayo culumta shariicada oo waxa weeyaan dadkan dhalinyarada ah ee kharrimay ee waalidku u taakeli waayay oo dhaqan celina ayaan insha Allah ku soo daray qaybta waxa weeye culumta shariicada lagu baran doonaa waa 3 sano weeye xufaad kalaamka Ilaahay iyaga aan wala soo saari doonaa Quraankana way xifdiyi doonaan maxad waxa weeyaan sharciyana waa loo dhigi doonaa oo waxa weeye duruusta culumta shariicada lagu bixin doono taana insha Allah ummadda waa ku soo dhaweynaynaa inay ka faa'iideystaan oo waxa weeyaan dad badan oo jeelasha akhlaaq xumo ka soo qaada inay halkan insha Allah edbin u noqoto oo waxa weeye Ilaahay ka dhigayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyagoo niyadoodu ay wanaagsan tahay oo wax soo bartay oo isbedelay oo magacii hore insha Allah aan lahayn muuqaalka horena aan lahayn ayaan insha Allah iyagana soo bandhigi doonaa shaqada qabataan qabta idinku ka Daburaxmaan ahaan maxaa kaga duwantiin walaal waxaan kaga duwanahay insha Allah dadka horta marka hore waan u dhibirsanahay xagga kharashka runtii waxaan oran karaa waa xarunta ugu dhaqaalaha yar waxa dadka laga qaado gobolka Togdheer waa kaga duwanahay xagga tayaahana waxaan oran karaa runtii waa xarumaha lambar 1 ku jira ee ummaddu waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka mahad sheeganayso walaal weey marka maxaa rajaynaysaan isbedel inaad ka qaban kartaan arrimahan aad imika ka shaqeynaysaa insha Allah waxaan rajaynaynaa waxa weeyaan ummadda xanuuno fara badan bay ka cabanaysaa dhaqan xumo fara badan baa insha Allah dadku ay ka cabanayaan oo waxa weeyaan dhalinyarada aan soo sheegay oo kale edbin bay u baahan yihiin waa Ilaahay kitaabkiisu waxa weeyaan waa dawooyinka u sarreysa runtii waa dawo aan dheyd lahayn oo waxa weeye waqti ay dhacaysa aan lahayn waa dawo waxa weeye tayo leh hadii aynu la nimaadno oo shuruudeedii iyo dawaabideedii sharciga ahayd laynaga helo sidii kitaabku inoo sheegay inaynu u raacno insha Allah waxa weeye dadku ay ku caafimaadi doonaan insha Allah waxaan markaa ummadda ugu baaqi lahaa oo aan maaragtay fariin halkan uga gudbin lahaa inay waxa weeyaan waxyaabaha khuraafaadka ah inay ka fogaadaan waxa sharciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay inoo baneeyay inay isku daweeyaan wixii xaaraana inay ka tagaan wixii sharciga waxa weeye ka baxsan runtii dawo ka heli maayaan dib waxaan ahayn waxa weeyaan ka heli maayaan xanuunkiisuna waxaaba laga yaabaa inuu ku sii daba dheeraado hadhow xal loo waayo markuu khuraafaad la yaal iyo wuxuu tago marka ummadda insha Allah waxaan ugu baaqi lahaa gobolka Burco muddo ayaan ka maqnaa waxa weeyaan runtii gobolada kale aan waqti siiyay nimanka 6 bilood gaadhaysa ayaan gobolka shaqadiisa ka maqnaa runtii waxaan ugu baaqayaa gobolkana shaqada insha Allah inaanu ka bilownay qofkii ka faa'iideystay Ilaahay garansiiyo waxaan ugu baaqayaa gobolka waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan jaamac wadaad inay ka faa'iideystaan oo uu ka furay dhowr meelood ka furay oo ay u furan tahay dadkuna aad iyo aad imika si wacan ugu qulqulayo oo ay fahmeen markii ay fahmeen waxa weeyaan xagga tayada Maxamed Mataan Gabalaax Maxamed Mooto Ariel TV magaalada Burco.